waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno tayada diyaaradaha cusub ee dagaalka ee ay Turkigu tijaabooyinkii u dambeeyay marinaya iyo kacaanka cusub ee ku soo kordhay farsamayntii diyaaradaha aan duuliyaashu wadin iyo weliba suurtagalnimada inay diyaaradaha drone-tu bedel u noqdaan diyaaradaha dagaalka ee caadiga macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. kadib guulihii badnaa ee ay xaqiijiyeen diyaaradaha Turkiga ee aan duuliyaashu wadin ee dhanka militariga loo adeegsado ee noocoodu yahay Agunji iyo Bayraktar ayaa haatan waxa ay faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaysaa diyaaradaha drone-ta ee cusub ee qaadi kara 12 gantaal oo ah gantaalaha Songor oo miisaankoodu culus yahay taasoo sida ay khubarada militariga ee waddankaasi sheegayaan buuxin karta fulinta howlgalladii dagaal ee qaban karaysay diyaaradda F-16 oo ah diyaaradda dagaal ee dalalka ugu badan ay haysta. isbeddelkan cusub waxaa loo arkaa inuu yahay kacaan cusub oo ka dhashay dhanka farsamaynta diyaaradaha aan duuliyaashu lahayn iyagoo Turkigu si dhaqso leh horumar uga sameynaya kuna dhaafaya wadamada waaweyn ee adduunka qaarkood. haatanna uu ka mid yahay Turkigu 6 wadan ee keliya ee caalamka oo dhan soo saari kara diyaaradaha aan duuliyaashu wadin ee militariga iyo rayidka leh halka qiyaasta cusub ee Turkigu ay sheegayso in noocan ugu dambeeya ee diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ay ka dhigayso inuu Turkigu ka mid noqdo 3 wadan ee keliya ee soo saari kara diyaaradaha noocana. dhawaaqan cusub ee Turkigu ku soo bandhigayaan diyaaradoodan cusub ee drone-tu waxa uu ku soo beegmayaa xilli ahmiyad gaar ah ay siinayso farsamaynta maadaama ay jiraan saadaalo sheegaya suurtagalnimada inay militariga Turkigu dagaalala galaan meelo ka mid ah ama meelo ay ka mid yihiin waqooyiga Suuriya ama Liibiya ama bariga Mediterranean-ka. sidoo kalena ay dawladda Mareykanku ku sii adkaysanayso inay Turkiga ka saarayso qaybtii uu ka ahaa farsamaynta iyo soo iibsiga diyaaradaha F-35 ee casriga. inkastoo haddaba aanay diyaaradaha drone-tu ku wada qaban karin shaqadii ay qabanayeen diyaaradaha kale ee caadiga ah ee militarigu, haddana diyaaradaha drone-tu waxay leedahay faa'iidooyin aanay diyaaradaha dagaalka ee ugu cusub adduunku aanay lahayn, sida ka maqnaanshaha aanay cid bani aadamihi dusheeda saarnayn oo aanay duuliyaal wadin. taa darteedna ay hawlahooda ugu filanayaan meelaha ugu halista badan iyagoo haddii ay khatar la kulmaanna aan khasaare nafeed ka dhalanayn oo ama keligood la soo ridayo ama la gubayo. kasokow Turkigu wuxuu u arkaa inuu qaadayo tallaabo horumarsan oo diiradda ku saarayo waxa loogu yeero samaysashada hubka mustaqbalka, iyadoo Ankara ka guuraysa ku tiirsanaanteedii diyaaradihii dagaalka ee soo jireenka ah una gudbaysa adeegsiga hubka tiknoolajiyadda ku shaqeeya. mamnuucitaankii Mareykanku ka mamnuuceen Turkigu inay ka iibiyaan diyaaradahooda F-35 waxay ku dhiirigelisay dawladda Turkigu inay horumariyaan saanadooda difaaca ee ay iyagu farsamaystaan, gaar ahaan dhanka diyaaradaha aanay duuliyaashu wadin ee dhanka militariga loo isticmaalo. diyaaradaha soo la kordhiyey saacadihii ay duulimaadka tooska ah ku jiri karayeen iyo masaafadii joogga sare ahayd ee ay ku duuli kareen oo kor loo qaaday, kartina ay u leeyihiin inay ka dhuntaan raadarada ugu casirsan, qaadina karaan gantaalo miisaan badan, lana ballaadhiyey awoodda dhanka shiishka iyo toogashada. faa'iidooyin kale oo badanna ay leeyihiin diyaaradaha drone-ta ee Turkigu. sanadihii u dambeeyey waxay diyaaradahooda drone-ta u isticmaalayeen howlgalladoodii ciidan ee ay kaga hortegayeen dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Kurdiyiinta ee gudaha Turkiga iyo bannaankiisaba. laakiin adeegsigooda diyaaradahaasi waxay si weyn u soo shaac baxday oo caalamku u wada ogaaday intii ay socdeen howlgalladii militariga Turkigu ka fulin jireen waqooyiga Suuriya iyo isku horimaadadii tooska ahaa ee militariyada Turkiga iyo Suuriya ay iskaga hor yimaadeen gobolka Idlib bilowgii sanadkan 2020. xilligaas oo ay u suura gashay diyaaradaha drone-ta Turkigu inay burburiyaan boqolaal gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Suuriya iyo gantaalaha difaaca ee noocoodu yahay Banzir ee Ruushku sameeyo. xilligaa kadib ahmiyadda iyo quwadda diyaaradahaasi waxay mar kale bannaanka timi markii ay dusha ka taageerayeen ciidamada xukuumadda Liibiya ee galbeedka waddankooda ka saarayay ciidankii Jenaraal Xaftar iyo maleeshiyaadkii calooshooda oo shaqaystayaasha shisheeye. xilligaasoo militariga Turkigu baahiyey muuqaalo fiidiyoo oo muujinaya diyaaradahooda drone-ta oo tooganaya dabeetana burburinaya bartilmaameedyo taagan iyo kuwa dhaqdhaqaaqaya.
iyagoo gaadiidkii dagaal ee ay burburiyeen ay ka mid ahaayeen 10 gantaalaha difaaca cirka ee Banzir oo ay 72 saacadood gudahood ku gubeen waana gantaalaha ay Imaaraadku lahaayeen ee ay dawladda Imaaraadku u keentay oo ku xoojisay ciidamada Xaftar noocyada ay dagaalada Suuriya iyo Liibiya u isticmaaleen Turkigu waxa ka mid ahaa diyaaradda Bayraktar TB2 waana diyaaradda muujisay kartida ay dagaalada casriga ah u leedahay laakiin kacaankan dhabta ah ee farsamaynta diyaaradaha droontu waxa uu sii laba kacleeyay markii tijaabadii u horeysay la mariyay diyaaradaha cusub ee droonta ee kala ah Agenji iyo Songor kuwaas oo la ogaaday faa'iidada military ee horumarsan ee ay leeyihiin khamiistii toddobaadkan ee 17 bisha Sebtembar shirkadda Turkiga ee farsamada gaadiidka cirka iyo dayax-gacmeedada ee TUSAS waxa ay ku dhawaaqday guusha laga gaaray tijaabinta duulimaadka diyaaradda droonta ee Aqsonga taasoo duulimaad toos ah oo tijaabo ah hawada ku tirtay muddo 28 saacadood oo xiriira xilliga oo ay maaxaysay masaafo 20,000 oo fud oo jooga sare iyadoo waliba xambaarsanayd miisaan culus oo rasaas iyo saanad kale oo ciidan guud ahaan miisaanka ay diyaaradda si qaadi kartaa uu gaari karo 700 kilogram wasaaradda difaaca ee Turkigu waxay sabtidii shalay sheegtay in dhawaan militariga Turkigu la wareegayaan hub iyo saanad kale oo lagu farsameeyay gudaha Turkiga ayna ka mid yihiin gantaalaha badda laga rido ee badda wax ka dila diyaaradaha aanay duuliyaashu wadin ee duqeyn kara meelaha xasaasiya iyo agabka weerarada elektaroonikada ah ee horumarsan iyadoo aynu hore barnaamijkeena xogta daahsoon ugu soo bandhignay gantaalka cusub ee ciidamada badda ee Turkigu ku qalaabsan yihiin kaasoo ay samaysay shirkadda farsamada difaacaadka Turkiga ee Rockets ahna gantaal ku shaqeeya shucaaca laysarka gaadhina kara masaafo 240 kilomitir kana dhuban kara raadarada kaasoo joog aad u hooseeya ku socon kara madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan hore waxa uu sheegay dadweynaha dalkiisa in haddii ay kor u qaadaan tiknoolajiyadooda dhanka hubka kordhiyaan tirada dadweynahooda aanay dawlad kaliya oo caalamka ah is hortaagi karin isagoo intaa ku daray in dal Turkiga oo kale ah oo ku yaala mandaqad juqraafi ahaan xasaasiya ay waajib ku tahay inuu isagu samaysto oo horumariyo saanada dhanka difaaca ee u baahan yahay xilligan oo khilaaf dhinacyo badan ee Turkiga kala dhaxeeya dawladda Gariiga oo ay dhabarka ka riixayaan wadamo kale oo reer Yuruba ayaa dadka la socda khilaafkaasi waxa ay leeyihiin mowqifyada adag ee ay Ankara iska taagaysa xalinta khilaafkaasi waxa uu ka turjumayaa xuduudda ciidan ee isa soo taraysa ee ay